Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal waxaan rabaa inaan xaggan nagula wadaago video yar. Videoga oo ku saabsan qofku markuu xareysto lotteriga siduu eegan lahaa natiijada inuu helay iyo inuu waayay, sida u eegan lahaa ayaan rabaa inaan xaggan nagula wadaago si uu qofna ugu daba socon oo ii eegi waxa uu oran. Intii garanaysaa way garanaysaaba, intii garanayna waxaan rabaa inay xaggan aan kula yar wadaago. Ma aha wax adag oo waa wax iska easy ah. Qofkuna sanadkan ayuu eegan hadda aan ka tusi doono videogan. Markuu qofku hawsan tahay wuxuu furi browserka, imika Google iska furi qofku, kadibna DV Lottery ayuu ku qori matalan DV Lottery. qofku markuu saa ugu qoro DV Lottery, xilligaas waxaa geli doonto Electronic Diversity Visa Lottery page-kaas ayaa geli doonta dusha sarena ay kaga qoran tahay DV Lottery State ayaa geli doonta. kuwa hore geli maysid, page-ka ayaa geli doonta. ciwaankan ayaa kasii geli doonta. ciwaanka marka kasii geshid wuxuu ku geyn doonaa page-kan buu geyn doonaa. qofku matalan haddaan soo qaadno bishii sanadii hore 2019 bishii 10aad dadkii xareystay waxay eeganayaan sanadan 2020 bisha shanaad baa la eegtaa. sanadan bishan soo socotay ay ka harsantahay 10 cisho May ayuu qofku eegan karayaa oo markaaba dib u furaan oo qofku eegan karaa insha Allah. waxaan rabaa page-kan markuu saan kuugu soo baxdo waa meesha laga garo, waa page-ka dhanba check state-ka ayaa sii gali. marka aad sii gashid page kale kugu sii tuuraya. weliba waxaan rabaa inaan qofku markuu eeganayo oo ka eeganayo telefoonkiisa si uga eegan lahaa isagoo computer iyo laptop iyo waxyaalo kale ha u eegan isku sii hawlin. telefoonkiisa yar ee gacanta ku haya uu ka eegan karaya hadduu iska yahay netka uu qaadanayo. telefoonada dadka inta badan ay sitaan netkii ay iska wada leeyihiin iska eegan karaa. Continue haddana waa continue markuu taabto hore u sii socdo wuxuu u soo baxaya page-kan oo ka kooban 4 qodob. qodobka u horeeya waa kaas, ka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afaraad. kadib wuxuu wax weyn maahaba qofku markuu xareysto say dadku wala ogsoon yihiin number baa la siiyaa. lambarkaas wuxuu ka kooban yahay 16 ayuu ka kooban yahay. 16 buu ka kooban yahay. xagga u horeysa confirmation number ayuu ku qori doonaa. xaggan ayuu ku qori doonaa. xaggaas ayuu ku qori doonaa. ka u horeeya ayuu ku qori doonaa. aan taabanayo ayuu ku qori doonaa oo numberkii ayuu ku qori doonaa. qodobkan labaad ee xaggani waxa weeye magaca awooga ayuu qofku ku qorayaa. haddii aan Soomaali nahay 3 magac baan isticmaalnaa inta ugu badan, magacaaga, ka aabaha iyo ka awooga. laakiinse wadamada qaarkood sida Carabta oo kale 4 magac bay isticmaalaan. iyagoo 3 magac la wata ayayna aan lagu hornay waa magacii faamiga ayay wataan inta u badan. xilligaas iyagoo afraad way isticmaalayaan. laakiinse anagu magaciina waxaan ku qoraynaa awoogiin amba ku qoro qofka magaciisa saddexaad ayuu xagga gelinayaa. qodobka labaad kani kalena waa sanadii uu dhashay. ma gelinayo maalintiina gelin maayo, bishiina gelin maayo, waa maalintii uu dhashay. waxaan jeedaa waa sanadkii uu dhashay. waa sanadkii uu dhashay ayuu gelin doonaa qodobka saddexaad. qodobkan afaraadi waxa weeye waa qoraalka yar ee weyn ee arkaysiin farta waaweyn ku qoran ayuu xaggan ku qorayaa qofku. imika waxaa ku qoran qoraalka u isbedela mar walba oo qof furo u isbedelayaa. xilligaas qoraalka yarba xagga yarba ku qori doontaa. markuu qofku xagga ku qoro sida imika dad hore badan aan eegayay waa kuwaas nacamde waa qoraaladii isbedelay weliga xaggaaba ka arkay shaashadaba. qoraalka yar ayaa xagga dib ku qoray HR 9 iyo W ga xagga ku qoray kadibna waxaa sii taaban doontaa submit baa taaban. kadib marka submit taabatid page kale ayuu ku furayaa ina heshay
cadaynaysa iyo inaa weyday. Haddii ay heshayna waa wixii u xareysatayba dee waa nasiibka oo dee waa wixii aad doonaysayba oo dee lacag la iibay ahaydba. haddii aad weydina dee wax dee khasaare ah dee kalama kulmin oo dee markii horeba dee lacag ba dee kama bixin bay ahaydba. waa qof nasiibkiisa eeganaya green cardka siduu helo un weejaan. sanada dambeba qofku iskaga ceshan karayaa ilaa dee intuu ka helayo oo dee nasiibkiisa dee haddii ilaahay wax uga qoray dee ilaahay ha ka siinayo. haddii ilaahay waxba uga qorina dee ilaahay waxba kaama qorin waa wax dee khasaare ahba kuguma aha. waa afartaa qodob. qodobka hore waxaan nidhi nambarkii oo 16 ka kooban buu ku qorayaa. qodobka labaad waxaan nidhi magaca awowga waa ku qori oo qura bes. magaca aabahana ku qori maysid ka aabahana kaagana ku qori maysid ka aabahana ku qori maysid ka awowga baa ku qori. kana xaggan saddexaadna waxaa weeye waa sanadii unbaa ku qori. kani kale aan kuu sheegayna qoraalka waaweyn ee farta waaweyn unbaa kusoo labaa celin kadibna samidka baa taaban. kadib ama inaa heshanay sidaaba ku eegan doonta. haddaa weynaydana dee sidaaba u eegan doonta labadaba wixii kaaga soo baxay nasiibka. waxaa jira haddii uu qofku nambarkiisii waayo waa su-aal meesha taal. lambarkaygii waan waayey computerkayga meeshaan ka geliya ma garanayo. telefoonkii uu ku jiray buu ayaaba layga xadayba ama iga lumayba. dee lambarkii sidaa u weyday waa weyday lambarkii ma haysto. dee ma sidaabaan ku daynaya may qofka hadduu lambarkiisa waayo waa meel looga soo celinaya jirta. xagga ha u jeedin qodobka koobaad confirmation number xagga yar lagu qorayo 16ka lagu qorayo number lagu qorayo ay hoostiisa maxaa ku qoran forgot confirmation number. nacam dee qofkii nambarkiisii hiloobay dib ugu soo ceshan karayaa. kadib qayb kale kuu furi qaybtaa kale kuu furto nacam waa dee tallaabo waa sii soconi. kadib lambarkaagii baa lagu soo celin kaa limay. ma raba inaan xaggan videogan aan ugu sii dhammaystiro sida nacam dee saacad ayaan diidanahay inay dee waqti badan aan videogan intan inaan kusoo koobo ayaan jeclaystay. dadkeen inta ugu badan waxay jecel yihiin videoyaasha ee kooban ee yaryar kuwa badan ma jeclo. imika video labaad ayaan doobi doonaa aan ku tusi doonaa qofkii sidoo markuu lambarku ka lumo siduu usoo ceshan lahaa ayaan tusi doonaa iyo wuxuu xaggu tagi doono iyo siduu soo saaran lahaa ayaan tusi doonaa oo video labaad baan ka waxayn doonaa insha Allah. waxaan nigaga tagayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan kaloo ni ogeysiinayaa channelka subscribe-ka iyo like-na nagala hiloobina maxaa yeelay anaga dhiirigelin bay noo tahay oo dee inaan hore u sii soconno. inagana wax dhibaato aniguma aho dee qof walaalka oo ku caabisay subscribe-ka ama videogiisa sii baahisay dee hadduu wax khayra wado ama wax faa'iido ah wado adna ajar unbaa kugu sugan. hadduu wax dee xumaan ah wadana dee waa xumaanaba dee inuu qofku sii wadaba ma qurux badno. laakiin subscribe-ka channelkana nagala hiloobina. haddii kale inaan saa lasku sii caawino ayaa qurux badan oo dee la sii wadaaga videogan ama channelka videoyaashiisa kale eheladiin iyo maaragtay asxaabtiin si aan isku caawino dee oo annagana waxay noo tahay dhiirigelin. inagana wax khasaare ah nigama aho dee mar haddii wixii aad ka faa'iidaysanaysiin dee khasaare maaha. haddii hore usii taqaanayna dee qof walaalkaayoo caawisay dee maaragtay dhinaca loonbaa ka helay. haddii waxaa xagga haddaba nigaga tegaya walaalayaal hadalka waa nigu badiyey. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mar labaad waa kaas maalintu haddii wacnaato haddii habeen aad joogtidna habeenku ha kugu wacnaado. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.